Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada qisadan yar ee kooban. Nin ka mid ah ummadihii hore ayaa waxa uu marayay meel lama degaan ah, markaasuu daruuraha ka maqlay cod odhanaya, waxaad waraabisaa beerta Hebel. Ninkii wuu yaabay, oo waxa uu isweydiiyey codka aad maqashay ma dhabbaa mise maaha. Ninkii oo yaaban ayaa daruurtii dhaqaaqday, markaasuu isaguna dhaqaaqay. Uu u dhaqaaqay dhankii ay daruurtu u jihaysatay. In yar kadib waxa ay daruurtii bilowday onkod iyo hillaac, waana ay da'day. Roobkii ayaa ku ururay meel waadi ah, kadibna biyihii waxa ay gaadheen meel beer ah, markaasay beertii oo dhan waraabisay. Ninkii oo yaaban ayaa la kulmay ninkii beerta lahaa, waxaanu weydiiyey magiciisa, waxaanu ku yidhi waa Hebel, waa magacii uu daruurta ka maqlay. Ninkii waxa uu hubsaday in codka uu maqlay uu ahaa malag, markaasuu weydiiyey waxaa beerta keligii loo waraabiyey. Ninkii beerta lahaa ayaa ku yidhi, maadaama aad i weydiisay waan kuu sheegayaa sababta beertayda loo waraabiyey. Waxaanu ku yidhi, marka aan beerta beero waxaa ka soo baxaa ayaan u qaybiyaa 3 meelood. 1 meel waxaa quuta aniga iyo ubadkayga, qaybta labaadna waan sadaqaystaa, dar Ilaahay ayaanan u bixiyaa, qaybta saddexaadna beerta ayaan dib ugu celiyaa si ay mar labaad u soo go'do. Karaamadan ninka ku dhacday ayaa ah inuu u bixiyo xoolihiisa dar Ilaahay. Marka koowaad qaybta uu siiyo reerkiisu waa sadaqo, qaybta labaadna dadka saboolka ah ayuu siiyaa, qaybta saddexaadna waxa uu ku ilaaliyaa sadaqadiisa oo beerta ayuu dib ugu celiyaa. Waxa ay ka dhigan tahay in uu bixiyey dhammaan xoolihiisa oo dhan dar Ilaahay. Markaas ayuu Eebbana ka muujiyey mucjisadan.